wadadani oo jidka laamiga ee isku xidha xaafadweynta Xaasleyda iyo magaalada inteeda kale waxaana jidkani laamiga ay dawladda hoose magaalada Boorama ay dhistay horaantii sanadii 2018 balse waxa muddooyinkii ugu dambeeyay meelo badan oo kamid ah jidkani soo gaadhay burbur xoogan oo gaadiidka isticmaala dariiqan xataa ay ku kaliftay in meelaha qaar ay ka leexdaan kadib markii dibadda uu soo ifbaxday meelo badan oo jidkani uu ka burbursan yahay waxa uu istaago siiskooda isku xilqaamay dhalinyaro dhowr oo degan xaafadweynta Xaasleyda waxaana dhalinyaradani dayactiraysa jidkani hor kacayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal ahna gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka u baxa xaafadda Xaasleyda ahna gudoomiyaha guud ee xaafadweynta Xaasleyda mudane Maxamed Abiib Maxamed sidoo kale waxa dayactirkani lagu sameeyay dariiqani gacan weyn ku lahaa meeyirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi isagoona dhalinyaradani dayactiraysa jidkani ugu deeqay gaamulkan lagu habaqtirayay jidkani muhiimka cadceedo aad u kullayay dhalinyaradani ku hawleeyeen dayactirka jidka dablashada dushi ay ku diyaarinayaan foostooyin ay gaamur ay ku karkariyeen kadibna waxay dhalinyaradani isku waafajinayaan gaari gacan ay ku soo guraan jeeg iyo gaamurkii ay karkariyeen kadibna waxay ku daboolayaan meelaha uu dayac uu ka muuqda jidkani inkastoo ay dhib badan tahay haddana wahab laga fursan waayay si loo daboolo baahida dayaca ee soo wajahday jidkani muhiimka u ah isku socodka dadka ku nool xaafadda iyo magaalada inteeda kale dayactirkan aan saaka wadnay waa dayactirkan ugu dayactiraynay wadada laamida xaafadda Xaasleyda kaasi oo dayactir badan dhaawacyo badan ka muuqdeen oo hawshii galnay ujeedada aan u dayactiraynay waxay ahayd markaan aragnay wadadii oo goodtii ugu sii badanayaan marka hadii la gaadho waa in way soo gaadhgaadhisay marka saadaradeed waan gaadhnay alxamdulillah markaan waxyaabo badan noo qabsanay wadadii waan dhameeyay waan dayactirnay waana ugu guuleysanay inaan hawsha qaban yaaydi ka caawiyay ama halkeed ka keenteen in qalabkan aad saaka aad ku dayactirayseen hadii ay tahay gaamurka iyo sidoo kale jayga waxa naga caawiyay anagoo kaashana maamulka iskaashatada iyo maamulka degmada iskaashatada waxa naga caawisay in si soo jagaca iyo wixii kharash baxay kuuligi ama inamada shaqeynay maarku degmada Salebaan Xasan Xadi wuxuu naga caawiyay gaamurkii aan ugu shaqeynay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal ahna gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka u baxa xaafadda Xaasleyda ahna gudoomiyaha guud ee xaafadweynta Xaasleyda mudane Maxamed Abiib Maxamed waxa uu sidoo kale ka xog waramayaa qorshayaal dhowr ay ku hawleeyeen in maalmaha soo socda ay ka hirgeliyaan xaafadda Xaasleyda intaas oo kaliya kuma koobna qorshayaasha la rabo in laga hirgeliyo xaafadweynta sidoo kale gudoomiye Maxamed Abiib Maxamed waxa uu hoosta ka xariiqay in xaafadda midowga iyo isku duubnida ee Xaasley United ay dhawaanta ay ka hirgelinayaan barnaamij cusub ay ugu magac dareen iftiimi xaafadda qorshayaal badan oo kale leenahay laakiin marka hadda waxaan ugu soo foodleynaa toddobaadkan aan furno xafladii weyneed ee ugu soo bandhignay gaadiidkii hore ee meesha ka saarnay iyo gaadiidka cusub ee ugu bedelnay iyadoo aan iminka keenay birihii ay dadku nagu sugayeen rakaabka waqtiga ay sugayeen noo birihii keenay iminka birihiina aanu dhamaynay maanta aan wadadii dhamaynay toddobaadkan dhexdiisa insha Allah waxaan sugaynaa inaan qabanno xafladii weyneed ee nagu soo bandhignay gaadiidkii aan bedelnay iyo gaadiidka aan ugu bedelnay waxa jirta iftiimi xaafadda barnaamijkan iyadana wadnaa imika waxaan xaafadda waxa ka shidnaa 4 laambadood 4 laambadood waxa iibsaday dhalinyarta xaafadda oo iyagu isku xilqaamay markii la arkay anagoo saa u shaqeynayna wuxuu maarka magaalada Salebaan Xasan Xadi isaguna noogu deeqay 10 laambadood oo toddobaadkan gudihiisa xafladda insha Allah aan soo raacin doono in 10 laambadood ugu xireyno wadada xaafadda oo dhan si bilic xaafadda aan kor ugu qaadno وعمران حسين آدان مقالة بورما.